الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام بالشوينتا مدى إسلامك rahaan Soomaali meel kasta joogtaba waxaan ku salaamay salaanta islaamka hadiyada qaaliga ah Ilaahay agti rasuulku inoo keenay sallallahu alayhi wasallam. waxaan maanta joogaa aan soo boqday xafiiskan baahiyahan walwal aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shaqaalaha iyo maamulka khayraad fara badan iyo hawlo badan oo bulshadu dhan walbana ay ku hayaan ana kelmad wacdi oo waana ay iga codsadeen inaan naftayda ugu baahi badan ummadda islaamka aan wixii Ilaahay isoo dhexmariyo aan halkan uga tabiyo. Ilaahay ma mahad waxaan insha Allah dillaah kariin kelmadan maanta wacdiga ay ku ciwaankeedu uu noqonaya alqanaaca qofku inuu ku qanco waxa Ilaahay siiyay kelmad aad u ballaaran way madu inay qanaacdo oo Ilaahay waxa uu siiyo ay ku qancaan oo Ilaahay aanay qawadin ilaa intaasoo kutubba Ilaahay soo deji intaasoo rasuul Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa isaga soo dabadir marka kuma koobnaan karto hal jalso iyo hal fadhi laakiin waa uun istiftaaxun furfurasho waxaan insha Allah ka dhigi doonaa musassal insha Allah dillaah kariin wixii Ilaahay iga waafajiyo maaratay duruus siyar daba joogta. waxaa mixwarka qanaacada xadiis rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ayaa kelmadeenu ku saabsanaan doonta. رسولك صلى الله عليه وسلم حديث وحاو كيري قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. وحديث صحيحة وحال لباني رسولك صلى الله عليه وسلم من أسلم عدي إلهي إسلام تنمى وقداقي إلهي عده إسلام تنمى سيي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إلهي سبحانه وتعالى إسلام تنمو أبترسين يكومت مادو منصبنا كومت مادو قروحنا كومت مادو تعلينا كومت مادو ونور يهدي به الله من يشاء من عباده. وإلهي النور وإلهي سبحانه وتعالى قفك وغد قدتك والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بإلهي سبحانه وتعالى والله بما تعملون بصير. إلهي عدة إسلام تنمسي بالليبانتي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان رزقه كفافا. حديثك أطراف بدن بو تابانيا نولشيسنا أي كفاف نقطي كفاف waxay leeyihiin culimadu markay fasirayaan macnayaal badan oo ku fasiraan yashba'u yawman wa yaju'u yawman bay ku soo koobanayda maalina waa dhargaya maalina waa qadaya noloshaas Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu amaanay. maxal shaahidka u dambeeya ee xadiiska faqradiisu hadaynu mid kasta istul taagno intaasoo xadiis intaasoo aayadood bay naga qaadanaysaa waxa uu rasuulku leeyahay xadiiska aakhirkiisa waqannacahu Allah bima ataa kuna qancay waxa Ilaahay siiyay. qofku waxa la doonayaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku qanco. Ilaahay maxaad ugu qanacaysaa adduunkana timi Ilaahay subhanahu wa ta'ala lillahi al-amru wa min qabl. Ilaahay subhanahu wa ta'ala arinta wixii hore u dhacayna amarkiisa Ilaahay isaga waxa gadaal ka iman doonana Ilaahay isaga haya. yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard. koonkan maamulkiisa Ilaahay baa gacanta ku haya. koon dhammaystiran baa soo gashay. maxaad u qawadaysaa waxa aad ugu dhex yaala maxaad ku darsatay cadceed baad ugu timi habeen baad ugu timi maalin baad ugu timi barwaaqaad ugu timi abaar baad ugu timi
bugtaad ugu timi caafimaad baad ugu timi hawaad ugu timi adigu waxaad ku soo dartay bal aad saluugtidii adigu qof yahow waxaad ku soo dartay ma jira jawaabtu waa maya waxba kama soo darin saadaradeed inaanad ilaahay qawadin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama koonkan waxa ka dhacay ee dhimasho leh ee nolol leh ee geeri leh ilaah baa subxaanahu wa tacaala ku qadaray ha qawadin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay nebi maxamed markuu bashariyadda la hadlayay waxa uu ilaahay leeyahay qul illaahuma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa وتعز من تشاء وتذل من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وحاتر هذا إلهي بملكي كان اسكاله كونكن يا كاخر كو دونو إلهي سبحانه وتعالى بغر كدغي مناسبت أدونك ددكو تبنيان إلهي قارسين وتعز وتنزع الملك ممن تشاء كو دون إلهي سبحانه وتعالى كسيبي وإلهي سبحانه وتعالى كقاضي حلك إلهي سبحانه وتعالى كو دون عزينيا وأسبابتي عسدا مالكي سينيا شرفتي سينيا ددكو waxay ciisada u yaqaanaan asbaabta ciisado dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siinaya wa tudhillu man tasha ku doon Ilaahay subhanahu wa ta'ala dilini إنك على كل شيء قدير سادرادد إلهي با سبحانه وتعالى يعز من يشاء كودون إلهي عيسى يرفع من يشاء كودون إلهي كورقاد يدل من يشاء كودون يهدي من يشاء إلهي سبحانه وتعالى كودون أي إلهي سبحانه وتعالى رزق واسع كودون كيري كودونو ودسين كودونو ودلان إلهي سبحانه وتعالى كسلدي إله با سبحانه وتعالى مامل كان أو دن يكون كان دن عنده واي وحي إلهي قيب كوسي الله سيدا كولا معاملنا يعيد كاغن حريص بدل مجرته الله إلهي سبحانه وتعالى قف والإلهي سجا وحو قال مدبا محي هيدي باهدو أيضا تو إلهي سجا أبوري أو قرني مدبا محي إلهي سبحانه وتعالى هنتدا iyo maal inuu ku noolaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maartay ugu deeqaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga abuur hadaladeed dadkii fahmay warka Ilaahay iyo warka rasuulka maxay heeday ummadihii qurunti mufaddalada ahayd imaamka weyn ee imaam Shaafici maqaala cajiiba ayuu leeyahay oo abyaadiisa iyo gabyadiisa diiwaanadiisa ku jira waxa faqra kamida waxa uu leeyahay ida kunta dha qalbin qanuu'in fa anta wa maliku dunya sawa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kugu deeqo qalbi qanuuca waxa uu haysto ee Ilaahay siiyay ku qanacsan waxa Ilaahay siiyay ku qanacsan ووحى إلهي كسيب وكقنع سيء أوري إلهي وحسيب وكقنع سيء مال إلهي وحسيب وكقنع سيء نور شمع شدك وكنوا ليه وكقنع سيء ديجان الله لوحي إلهي سيء قيب إلهي وقرتب وكقنع سيء إلهي كمان قل تاجي مثلك سنة قدر كإلهي مثلك سنة وحى إلهي وقرتي فأنت ومالك الدنيا سواء أديك يوقفك أدونك أسبابتي سلسيي تدك أنت تمني ميان gacanta loo galiyay haday mansab tahay haday hadal hayntiisa tahay haday maal tahay haday sandalad tahay inta dadku hadal hayaan oo dhan ka qalbigiisu qanacsan yahay sawaabatibi marka walaalayaal ilaahi waxaan ka baryaynaa naftayda iyo tiinama ilaahi subhanahu wa ta'ala uu inaga yeelo kuwa ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa uu siiyay ku qanacsan waxaynu haysano min Allah ilaahi xaqi bay inooga yimaadeen waxay naga maqanina meel kale naga ma jiraan ila Allah xaqi ilaahi bay naga jiraan ilaahi baynu ka doonaynaa kelmadeedii insha Allah dillahi kariin ehlu ma ahayn halkan
laakiin insha allahu maadaama la iga codsaday anigana daahiba igu jirta ka hadalka ilaahay maartay ma anaa baahi igu jirta dan u qaba aad iyo aad baad ugu mahadsantiin insha Allah billahi kariim ilaahay hadalka intiisa saxda Allah inuu anfaco waxa aynu khaladnay ee gaf ana إلهي نفتي ذي شيطان كي كهذا الله ينقض ضافه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.